tusaale anaga waxa waa soo barnay iskoolaan soo dhiganay dugsi sare ka soo baxnay baaji aan soo qaadanay marka haddana waxaan kurfadnaa farshaxan anaga alifinay waxaan kurstaagnaa aan ku shaqaysanaa shaqo abuur waaye reerkeen family hadda carruur alle yani xaasa le waa ka maaraya hadda laakiin fadhilaha dhila shaqo ku imaado guriga kugu timaado ma dhicleen daawadayaal maanta waxaan ku sugannahay suuqa Xamarweyne khaasatan gaar ahaan meesha lagu sameeyo taraashka gabsaarada saa u wada naqaano waa hidaha iyo dhaqanka oo waxa lagu sameeyaa gabsaarada baatiyada يعني wax walba ku saabsan hidaha iyo dhaqanka maanta waxa soo booqanay walaalihayna waxay noogu warbixiyeen habkay u sameeyaan tarashka iyo nolol maalmoodkooda maalin walba meeshan waxay u imaadaan qaabkay u sameeyaan lahaayeen tarashka ama ay ka dhacsan lahaayeen khutulyoomkooda haddana waxa garabkayga fadhiya maamulaha asigoo noogu warbixiyay habkay tarashku u sameeyaan iyo nolol maalmoodkooda qaabkay u soo dhacsadaan madax waxa loo yaqaan taraashkan waxaan soo waday ilaa iyo 20 sano ku dhow aniga waxaan bilaabay carruur ah kulli waa xirfad oo adiga xirfadaha lagu shaqeysto kamid ah yoomka waa laga dhacsadaa teed kalena maartaa waxa waaye adiga euro waa dhaanta kulli hadda dhibaato oo adiga saas adag aan kala kulmin habeeraatay ma jirto laakiin marar qaar waa laga kulmaa dhibaato marar qamid waxa jiro dhibaato horta shaqo walba dhinacayga adag taa jirto marka marar qaar adiga dharka qaar oo kale dhibaato laga kulmaa oo sida dharka oo adiga oo birqa laayo kale oo dharka adag oo maarta aan bixin waay kaas oo kale markii lagu keeno kale go'ay inta ku sameey jirtay in ka badan oo qaadana goobtan aan ku shaqeeyno waxay ku taalaa degmada Xamarweyne ku taalaa dhalinyarada kulligood ana farsamadan bare wax inta joogo qofka ugu horeeyo oo meeshan imaaday oo macnaha hawshan dhaqan gali aniga waay asxaabtayda intaan meesha joogto kulli bilow ila dhamaad ana hawshan macnaha garab ku siiyay inay bartaan ay maanta ku xamaashaan waa jiraan marar qaar qashashaad ee waxa noocaas oo kale inay dhacaan oo kale waa jirtaa oo laakiin waxa way badanaa wax ma aragno dadka aan farsamadan aan meeno horta labadu way isugu jiraan oo ay ragga waxa loo sameeyaa dhar qaar oo hidaha iyo dhaqanka oo kale dumarkan waxay u badan yihiin saarayaasha baatiga iyo waxaan loo sameeyo waxa u badan inta waxaan u sameeyay dumarka u badan shaqada taraashka waa xirfad adiga oo maarata oo adiga dalka laga isticmaalo sida hidaha dhaqanka oo kale waa hidaha dhaqan awal dadkii anaga naga horiyay isticmaal jiray anagana aygan ku gaarnay aygan ka soo qaadan farsamadan maanta ku xiriftameeno marka farsamada hidaha dhaqan farsamo Soomaaliyeed waa mid dibadna imaatay maaha dad anaga naga horiyay Soomaali ah ay anagana ay ka soo baranay anaga dadka maanta jiraan si barwina dhalinyarada halkan ka shaqeyso oo hadda goobtan ila joogto ilaa ay waxa ka koobanahay 6 qaar reer leh waa ku jiraan qaarna iskaabule waaye adiga 4 xaasyaal iyo 2 bisa aan reer leen noloshooda ka maareeyaan carruur ay leeyihiin qaarkood waxa waalidiintooda u shaqeeyaan ay ka maareeyaan gurigooda iyo familkooda ka maareeyaan adiga hadii oo markaas ay suuq shaqo taalo oo maarta shaqo ay jirto oo shaqada ay markaas ay toosan tahay xaqiiqdii in adiga maalintii 15 ilaa 20 qof oo qaban kara hadoo asiga suuxi soo tooso 10 saac ilaa 12 saac intaas ugu qaban kara kulli horta in qofkan aqoon oo adag tahay baash laakiin markuu barto waa fududahay farsamo fudud waay qofka laakiin markuu barto oo dhaxgalo waa u fududaanaysaa maxaa yeelay awal qofku waa inuu asiga oo la baraa kan saana leela la dhaho oo loo habeeyo oo wax meesh bilowgeed oo soo maro soo socdo markii howlahan kale oo soo baxay ninkan oo kale meesh fadhiyo hadda arday waay barshido ku jira hadda qaybta labaad ku jira oo dhamiyay hadda qaybtan uu soo gudbir waa mardhow xirtana oo bilaabi rabaa qaybta uu sareysa qaybtan waay in horta si uu fahmo qofka in qaabkan loo sameeyay laakiin noocyo kala jiro oo qaarkood magac lagu qoro qaarkood wax lagu sawiro oo maarta oo kan ka bedelan kasi duban kuwa oo aad kuwaas waa macnaha birmi isugunti tersa kale macnaha hadda qaybtan qayb kale kasi adaga jirto qaybtaas adag qayb kale kasi adag farshaxna jirto oo wultaba wixii la rabo lagu sameey karo qaybtan qaybta ka koreyso waxa lagu qori karaa magac lagu qori karaa hadii la rabo hees lagu qori karaa hadii la rabo gabya lagu qori karaa magac wixii doona lagu sameey karaa kan hadda laakiin qurxin waa baati loo isticmaalo aniga aqoontayda waa ka qalin jibi farsamada aqoontayda meel waa ka qalin jibi wixii farshaxanka ku kooban oo baati ku kooban oo la qurxinayo waa ka qalin jibi hargahan in la xirxiro adiga kan iyo macal kuwan isku jiraan waxa ugu muhiimsan horta waxa kan hadda oo hawsha waxa wado kan iyo kan waa wax lagu shaqeynaa
kan kawis la kan waxa la niis Soomaalida marka waa luqad badan tahay luqada adiga nixis adillah niis dad qaar dad waxay dhahan nixis ay dhahan kan Allah ama sharif sida loo yaqaano marka hore waa ka inaad sameysaa ka marka sameysid kaliis aad sameysid ka bacdi hal tanaal sameeya ka bacdi tanaal sameeyna afar jeer ay kugu qaadin inaad sameysid marar qaar oo ciladooba oo marar uu cilad ku timaada sida hadda macnaha aan u xalin oo kale hadda waxa jirto qayb ahad mar dhow aan xaliyay jirto qaybtaas waxa waaye tusaale hadda kan oo israacsan Soomaal oo israacsan marka hadda cilada ku imaatay mid go'ay tuntaan ku xalin marka saas oo kale marar qaar cilada ku imaataa waa la xaliyaa waa la tusiyaa marar qaar farsamada meeshaan cilad imaanay in oo tasaad waa kala baxsan yahay soo uu kala baxsan yahay oo quruxdaas birqaas wala marka cilad ku imaato ma laha waa dareemi farsamada in xoog yar ay adiga waxay ku jiraan waa la cilad bixinaa marka kan markii halka xabo oo kan la isticmaalayo adiga tan dhamaatay kan markii uu dhamaado waa mar la tuuraayo kale waxa lagu shaqeyn karaa adiga ilaa 3 bilood ilaa 4 bilood kale halka xabo lagu shaqeyn karaa runaantii dadka doonay inay farshaxan ka bartaan anaga dadka farsamayaqaanadana ku soo dhaweynayna meesha garabna ku siinaa in aan barno si ay wax ugu faa'iidaan waxaan dhilaad kaas runaantii wadanka horta shaqo abuur loo baahay maana in la iska fadhiiso loo baahno hadii aad jaamacad ka baxda xataa bad su'aal anaga waxa waa soo barnay iskoola soo dhiganay dugsi sare ka soo baxnay baaji aan soo qaadanay marka haddana waxaan kurfadnaa farshaxan anaga alifanay waxaan kurstaagnaa aan ku shaqeysnaa shaqo abuur waaye rekin family hadda carruur alle yani xaas alle waa ka maraya hadda laakiin fadhilaha dhila shaqo ku imaado guriga kugu timaado ma dhicleen marka waxa uu baaqad dadkaas dhilaha in ayaga ay hada adeesan ayaga inoo imaan karaa inay noo imaadaan si aan farsamada u faa'iideyno ilaan Soomaaliya waa balaarinta weynta gobol badan ay leedahay gobol baa joogta aad shaqeysan kartaa meel baa joogta Soomaaliya maanta garabsaarka waa la isticmaalaa baatiga waxa kale la isticmaalaa madashandeeda oo rag ay qaataan la isticmaalaa intaas ba maarta waa loo baahan yahay dadka badanaa waa la qaataa dukaamada lagu gadaa meel walba ganacsi lagu sameeyaa marka hadii ay bartaan sida xarqaankii oo kale waa meel walba uu joogo oo ku sameeyay karaa oo ku shaqeysan karaa oo gudaha Soomaaliya kamid ah hatta dibadda aado sida Yemen iyo Saudi iyo dad hadda noo jira meesha oo joogo oo ku shaqeysto inta naga tagay jira anaga barnay marka waxaan dhilaad kaas inay soo raadiyaan meel alaal meesha joogna noogu imaadaan anaga barayno haduu ilaahay waxa waaye in dad qiimo oo cadidan oo lagu sameeyaa jiro dadna waxa jiro heshiis marka qofka oo asiga oo suuq leeyahay oo kale carwooyinka oo suuq yaalo kale dharkan horta lagu gadaa hadda kuwaan hadda carwaa laga leeyahay waana badan yihiin markuu saan oo kale u badan yahay dharka oo adiga la geynayo sida carwoolida oo kale iyo maarta suuqlida iga maarta dadkaas ay qaadanayaan waxa lagu sameeyaa qiimo cadadan xabadii waxa lagu sameeyaa $1 ilaa $1.50 kale lagu sameeyaa markii adiga qof oo meelahaas oo kale u qaadayo imaado oo asiga markay oo keeno waxa adiga lagu sameeyaa $2 $3 heshiis oo kaas markan waxa lagu sameeyaa $1 waxa waaye dad jumlo waay jumlada tafaariiq kale jumlaanta tafaariiq kala duwanta waa ninka jumlada keenaya customer waay asina sidoo kale oo ganacsi joogo oo maartay asina lacag kasi wax kasi raadinayo waay oo asina oo sheyga inuu sii gadmo u qurxinayo marka qofka hadii asiga oo maarta oo ganacsi sameeynayso asiga wax aga helo si waa la heshiina waan badiyaan dharka $1 ilaa $1.50 ka qaadna si asiga wax aga sii macaasho qofka laakiin oo asiga oo rabo inuu xirto ama dibadaha u dhiibo maarta in iskaga kaligiisa qofkaas macnaha waa la heshiina goobtani waa mid ka mid ah goobaha lagu sameeyo tarashka gabsaarada iyo hidaha dhaqanka waana mid ka mid ah kuwa ugu qadiimsan magaalada Muqdisho oo lagu sameeyo hidaha dhaqanka mise tarashka gabsaarada